nin oday hadda ka hor gabar yar wuxuu la soo raacay bas kadibna isku kursi fadhiisteen adan gabadh yareed neefaa ka fakatay marka waxa istii odagan maadaama nin weyn yahay bal inuu wax dareemay in kala bil weydii markaas waxay tahay adeer jawiga maanta ka war kadibna wuxuu yiri oday smart yu ahaa wuxuu yiri adeer haddaan saan kusii jirno saxara noo da'aysa hadalkii kale magacii kale ma sheegi kareen hadda waxaan ula socdaa warqadan Jubbaland baa soo tuudhay maanta oo ay leedahay dawladda federaalka ahayd xiriirkan u jir marka dalkan hadduu saan kusii jiro waxaa la arkayaa qaybo badan oo Itoobiya ka tirsan qayb Uganda ka tirsan qayb Kenya ka tirsan marka waxaan qabaa fikir ah ay rabaan ma lagu kala yaaco 40 sano saan ku jirnaaye ma lagu kala yaaco gebigiisa wax aan ku haysano ma hayno marka adeerayaal dalkii waa baabay dadkina waa ku baabay dadkii dhalinyarada wax Liibiya saxara ku dhamaada Yurub iyo Mareykan iyo meel kasta ku dayacan qaar Kenya hooyada noogu dhaw lagu qalqalanayo ayaga waa asqalanaya dad qalatan isku bedelay gaajada qof markay ka badato wuxuu doono noqonaya waxa dadka isku diraya waxa maamul is haysta waxa qabiil is dagaalaya waa gaajo iyo fakhri marka hadda Soomaaliland markii laga reebo Soomaaliya inteeda kale meel lacag shilin uu ka shaqeeyo ma lacag taaban karo kulli electronic mobiles ku jiraan lacagti oo hal saac hadii istaagto nolosha dadku dhan way istaagaysa hal saac ka mid ah hadii shirkadahaas service ka bixiya ay istaagaan nolosha dadku dhan ba istaagaysa marka 40 sano waxaan ku jirnaa khiyaaligaas iyo dawlad baanahay iyo marka waxaan qabaa fikir ah Soomaaliland oo kale in loo doorto loo saxiixo maamul madax banaan dawlad madax banaan baan baatiin kuwan kalena maamulkii 3 gobol iyo ka badan noqdo loo saxiixo ayagana waxaan noqon lahayn sida Khaliijka oo kale ama Yurub oo kale dawlado yar yar oo qaniya oo haddii raan fiisaan isku dhexmara dad walaal ah waa isdagaalayn baan noqon lahayn oo dal kasta oo kamida uu shirkado kambaniyadaas adduunka Faransiis iyo Ingiriis iyo Yuhuud wuxuu doonay heshiis la gala dalka loo dhiso dadkuna waxay helayaan warshado ay u shaqo tagaan way noolaan lahaayeen dalkuna waa noolaan lahaa hadda 40 sano saan ku jirnaa 40 sano soo socda waa ku sii jireynaa bal waxa dhici doonta hadii aan saa ku sii jirno in qaybo kamida la dhaho hadda waa haystaan Itoobiya Kenya iyo qaybo kamida dalka Soomaaliyeed bay haystaan inta soo hadhana in Uganda iyo Kenya iyo Itoobiya oo kuwa Soomaaliya hor kacaya bal arki doonta hadayba dhacday haddaan basaanteeda haynaa federaalkina ma ahane farahu idin go'ay meesha tan dadku say u noolaadaan dalkuna u dhismo waxa weeye hal lagu kala yaaco si noo noolaado diga saas 40 sano isku haysanina qabiil ma dileen reer ma dileen dawlad goboleed ma maageen qof ma dileen qof jarjara lama arkeen gaajiya fakhri bay wax dadka isku diray gaajadu waa cadow iyo fakhri marka adeer saasaan qabaan